quraysh oo mushrikiin ah ayaa maamulay asnaama taale iyaga ka talinayay nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku cibaadeysan jiray oo imaan jiray xaram laakiin waxba kama qaban karo waxa meesha yaal waxa la dhihi jiray nabiga ilaahay wuxuu ku yiri kufu aydiyakum wa aqiimus salaa gacmaha laabta salaadana tukada dadkana diinta ugu yeera dagaal lama amrin markay soo noqdeen toddobaadkii labadii bay'u la galay nabiga kaleey salaatu wasalaam heshiis la galay waxay dhaheen noo soo wareeg مدينة إمام بيرهد مركا لما أمر النبي هجرتي عليه الصلاة والسلام نو إمام بيرهدين بيعوا لقى بيعوا بيعة العقبة الكبرى هي بيعة العقبة الصغرى مركي قدام بيسي بيعوا لقى النبي هشيس إن الدفاع عيان ويكدفاع عيان وحا المهودي ناقودي يكدفاع عيان مركا واحد نو سوريك بيعي كل قلن هشيس وصي لقلن لك نبيك ولبا مركي دم النبي عليه الصلاة والسلام لبي طبعا جلبية أوسية خزرج لبا ذي قبيلة دكان مدينة لبا أضياش ودي هو سو جلبية أها أيوكار أصو صاري مركز بيع عقارة كقاعدة أيضا أرنتها دعدي أو إلهي جوجل حار وقدقي أي واحد تمت إن دل كان لسكودي النبي عليه الصلاة والسلام مركز إلهينا أمر النبي لما أمر كهر إنه هاجره ما دقائق كان النبي هدان أمر لسينين وحكست هذا عني marka nabiga kaleey salaam markaas hijrada la amray inuu haajiro habeenkii maalinka go'aanka la gaaro caawa in la dilo la rabo nabiga kaleey salaatu wasalaam oo Bakar uu la hadlay wuxuu ku yiri waa la ifasaxay inaan haajiro markaas Abu Bakar wuxuu u diyaariyay gaadiidkii iyo cuntadii la cuni lahaa iyo nin jidka yaqaan oo khariid ah yani afka carabiga khariidka waxa macnaha qof dal aqoon ah oo khatar ah oo aan muslim ahayn قالوا ها مركا أبو بكر وحيد عن كراعة مركا النبي وحيد نعم وإراعيسا أبو بكر هذا وقفر غير أبو بكر قيسك أسماء بنت أبي بكر مرضي دحر كذي كلو قيسي وقاديد كوحرتي على بدي حيردي يوحرتي النبي وحو قال قد سدح بري وكجري قد كي وقالي وحسام الهبين كي ماشي مركو الساحة قوشيسي علي بن محمد عليه الصلاة والسلام intaanu nabiga haajirno bixin saddex bari ayuu god ku jiray waxa kula jira Abu Bakar labadooda kula jiray kaliya marka ninkii wadi laha lama socdo ninkii markaa lama socdo saddex bari kadib la ballamay marka nabiga habeenkii uu soo baxay wiilashii 10 ah iyo meeshii seefta la taagno soo maray ilaahay baa indhahooda ka qaaday madaxa ciid uga shubaalay nabiga iyagu hurda ilaahay ku riday subhanahu wa ta'ala kadib nabigu wuu baxay buurtii asaga Abu Bakar fuuleen goday galeen godkii markay galeen waxa cuntada u keenay jiray wiil ariga raaci jiro in Abu Bakar ahaa adigu meeshii ku jiray saddex bari saddex shay meeshii ku jiray quraash markuu waagi bariyo la arkay inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sameeyay joogin cali ajiifo ku yiri amaanooyinkii dadka aan u hayay u geegay gogashiisu seexday cali markay arkeen cali gogashi ka qaaday nabigu uusan joogin markaas shirka la qabtay waxa la yiri ninkii keeno nabi maxamed oo meed iyo nolol ku keena 100 neef oo geel ah oo geela gadgaduudan oo qaaliga ah ayaa la siinaya markaas carab wax Allah la wixii carab ah oo afartii jah loo kala yaacay si loo soo qabta nabiga kaleey salaatu wasalaam nabiga saddexdaas habeen godow ku jiray ma uusan dhaqaaqin godow galay godka xataa way tageen dushiisa istaageen laakiin ilaahay baa ka qariyay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku jiray asagii Abu Bakar wuxuu ku yiri rasuulka Ilaahay wallahi haduu mid kamid ah lugihiisa saas u damoodo waana arkaya markaas nabiga wuxuu ku yiri aamus Abu Bakar maxaa u maleynaysaa maadanuka bi ithnayn Allahu thalithuhuma saddex laba qof maxaad u maleynaysaa oo Ilaahay saddexeeyo marka Ilaahay baa ka indhasaabay subhanahu wa ta'ala ayuu qaban karo gacan qabad u gaaray Ilaahay ka qariyay subhanahu wa ta'ala saddexdii bari kadib uu ka baxay nabiga kaleey salaatu wasalaam marka Sheekh Abdulrahman halka nabiga kaleey salaatu wasalaam noo sii joogto ma jira nabi maxamed ka hor kaleey salaatu wasalaam nabiyadii hore waxay jirooday haaway jiraan waxay joor u horeeyay nabi Ibrahim kaleey salaam waa kii yiri inni muhaajirun ila rabbi markuu diinta dadka ugu yeeray tawxiidka ugu yeeray Khaliilur Rahmaan kaleey salaam wuxuu markuu dadkii diinta ugu yeeray kaligiisu ahaa daba lagu riday fala qabtay daba la shiday wala soo qabtay markaas dabkii lagu riday
ilaahay baa dabkii ka qaboojiyey subxaana watacaala oo ka dhigay ilaahay wuxuu yidhi dabkii buu amray yani kunii bardan wasalaaman calaa ibrahim waxaad noqotaa qabow iyo nabad u noqo nabi ibrahim calayhi salaam marka kunii bardan wasalaam marka dabkii markuu qaboobay uu ka soo baxay dabkii markaasuu yidhi waa idinka tagaa waa idinka haajiraya innii muhaajirun ilaa rabbii marka dhulka ciraaq uu ahaa meeshuu joogay uu soo haajiray wuxuu soo aaday dhinaca falastiin iyo dhinaca wuxuu soo aaday shaam xaggeed uu soo haajiray marka nebi ibraahim ugu horreeya uu haajiro uu ka haajiro dhulkiisii ilaahay dartiina u haajira aad baa u mahadsan tahay haddaba barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sheekhayna masjidka abubakar sadiiq ahna imaamka masaajidka ahna dalada imaamiyada North America xafidullah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar ayaa nagu soo booqday stuudiyaheena barnaamijkana wuxuu ku saabsan yahay haajir sidoo nabi maxamed calayhi salaatu wasallam uga haajiray maka una tagay madiina haddaba haddii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato fadlan waxaad soo wici kartaa telefonkeena 612-746-0553 adigoo weydiin doona sheekha haajiradii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka haajiray maka una haajiray madiina maxaa ku kalifay iyo aqoontaada ku saabsan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sababihii ku kalifay inaad waxba aad ka ogeyn bal sheekha ayaa nala jooga waana soo wici kartaan telefoonkana wuu idin furan yahay sheekh cabdiraxmaan markaad ka bacdi markii nabi maxamed calayhi salaam maka ka tagay 3 barina meesha ku jiray markaas way baxeen Soomaaliya way baxeen 3 bari kadib waxaa loo gaadiidka loo diyaariyay abubakar iyo ninkii dal aqoonka ahaa marka abubakar iyo nabiga iyo ninkii uu garwado waxay ka baxeen maka markii raadintii ay cagti xogaa degtay nabiga calayhi salaatu wasalaam jidku iska qaaday dhinacii madiina isaga socday marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa intuu sii socday waxyaalo fara badan jidka intuu joogay maaragtay ka dhacay waxaa ka mid ah meel inay harsadeen dhagaxa ah inay harsadeen markay aad u kululaadeen kadib wiil ari wada uu arigii u keenay markaasuu yidhi nabiga ma maali karnaa caana ma naga siin kartaa markaasuu yidhi wax irmaan kuma jiraan marka noo fasaxuu yidhi adiga aan maalno markaa wuu u fasaxay markaa caanuu ka lisay nabiga gacanta mariyey ninkii wuu yaabay xoolihii iyo maaragtay irmaanayn oo irmaanaday waxay ku noqotay shay mucjiza caanihii laga u ka lisay nabiga way cabeen abubakar asagiina wuu cabay guriga wuxuu ku noqday xoolihii iyo caano leh wax la yaab leh noqotay mucjizooyin badan jidka ka sii muuqday waxaa ka mid ah mucjizooyinka waxaa ka daba yimid nin leela Suraaqa ibn Malik al-Jashami ninkaasaa ka daba yimid asoo raacdeynayo markuu nabiga ka daba yimid oo uu ku soo dhow yahay ayaa alayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkii la go'ay dhulkii qabtay ninkii markuu arkay markaasuu yidhi ilaahay ii bari dhulkii inuu iga sii daayo waa ku ammaan gelinaa markaasuu ilaahay u bari dhulkii ilaahay ka sii daayay mar labaad uu haddana ku soo fakaday boqolkii geela hortiisa ka muuqdo mar labaad uu ku soo fakaday markaasuu haddana sidoo kale u noqday nabiga ilaahay buu bari waa la sii daayay haddana mar saddexaad uu ku soo noqday markii saddexaad markuu ilaahay ka sii daayay ayuu wuxuu yidhi isagaa ka sheekeynayo Suraaqa ibn Malik ibn Ju'sham wuxuu leeyahay markaan arkay waxaan ogaaday diintan inay diin sax tahay wax hor istaagi karaan inaysan jirin marka wuu islaamay wuu shahaatay markuu islaamay wuxuu ku yiri maxaan qaban karaa wuxuu yiri hal inaad tahay kaliya noqo dadka naga celi buu ku yiri wixii annagana soo raacday marka galabtii subaxdii wuxuu raacdeynay wuxuu lahaa nabiga meedkiisa aad keentid galabtiina asaga difaacay oo maaragtay wuxuu aaday dadka markuu ka hortay wuxuu dhigi jiray wixii ka hor yimaado war dhinacan ana soo maray dhulkaan oo idilo ma jira waxba ma jiraan waxaad yeelisaan ka noqda way iska soo noqon jireen mar Suraaqa haduu ka yimid xagga marka nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib madiina tagay dadkii reer madiina dhanaa sugayay marka sheekh cabdiraxmaan aad baa intaan madiina gaarin markaasi nabigu ka haajiray maka una haajiray madiina asxaabtii kale ku hartay maka ma la faray iyagu inay soo haajiraan madiina aadaan saxaabada ridwanullaahi calayhim markii dhibku ka batay iyaga ka hor loo fasaxay inay haajiraan oo nabiga waaba kasii hormareen iyaga in badan nabiga kasii hormartay nabiga iyo abubakar iyo maahe dadkii saxaabada inta way tageen saxaabadii madiina jiraan oo maartay way sii haajireen waa la amray waliba waajib ahayd in la haajiro oo haajira leeyahay qof walba marka waxay ka tageen guryahoodii
iyo maalkoodii iyo wadankoodii dhulkii oo dhan bay ka tageen nebiga markuu maka ka baxay alayhi salaam wuxuu yidhi wallahi makuu gadaal u damooday nebigu wuxuu yidhi waa ku jeclahay wuxuu yidhi waxaa tahay dhulka ilaahay dhulka aan ku jeclahay haddaynan la iga saarin oo qoladan iga kaa bixinina ma kaa bixin uu yidhi nebiga alayhi salaam ما سنت الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر أنا إمامك مساجد أبو بكر الدبقات كتليفونك هلو هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. ها سفي أنا أكون مغلا. ها. هلا. سفي عن هلو. هلو. وحاولين لها. شو؟ إن شاء الله وقتي. هلا. سفي عن هاو أكون مغلا. والله وحاولين لها وقتي حدث ولا سيرة النبي على أساس ما يرى وقتي كولا بيسو كولا ترى. مركا إن شاء الله تفسير مشران أو محاد أو صباحية مساجد أو يعني تلبس وقتنا إن شاء الله. أربعة ما سنتها. هذيك شرانا عروضها الصناعية وح يكير عمل نجاح من هنا. أربعة ما سنتها. شباب فاضي. waxay tiri عشان السيرة waa aad bay u fara badan tahay ma jiraan wax jalada ah ama kitaabiye ah oo masaajidka laga helayo si caruurteena aan ugu akhrino ما شاء الله وخير الله كسيو إلهنا المهذا كديق المصالحين هذه الله كبركيه سيرة النبي وأباهنا يعني ومهم جدا قفك المهنا يقانين تدكين أخريان وحالها إيمان كنسي كمتهاي ومعجزة كل جد ويدل مركا إن شاء الله تعالى ويجران سيروين دوبان في الصومالي ما قنسي وجرت تكود دوبان وجران لكن عربي وجرا إنجليش حتى وجرا إن شاء الله دروسنا ولا آخرية مساجد كثيرة ده إن شاء الله تعالى بل مكتبات مساجد كذا تكتو ولا جيها بينات كهش إن شاء الله تعالى أربعة ما سنتها قد كتليفون كان قادنا يا هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام وحيو السلام عليكم شيخ عبد الرحمن نواد سلامي شيخي السلام عليكم عليكم السلام خيرك أدوحي أمدا waxaan rabay inaan ku weydiiyo goorme ayay soo islaameen xamza iyo cumar aad baa umahadsan tahay بسم الله حمزة iyo cumar waxay soo islaameen waqtigii muslimiinta ay yaraayeen aadka u yaraayeen marka xamza radiyallahu anhu nabiga adeerkiisa ahaa oo sayid shuhada la yiraahdo xamza wuxuu soo islaamay iyo cumar laba waqti oo isku xigtay soo wada islaameen laba nin oo culusna waa ahaayeen marka waqtiyada muslimiinta ay yaraayeen sanadii hore dacwada ay soo islaameen markay soo islaameen labadoodaba waxay yiraahdeen aan soconno soo bax maxaa meesha ugu xariisantiin marka nabigana waa cabsoonayeen nabiga iyo saxaabadiisa waxay ku xariisnaayeen wax ku qaadan jireen guri la yiraahdo arqamna la yiraahdo gurigiisa oo maka ku yaala duleedkeeda ayuu nabiga duruusta ugu akhrin jiray markay soo islaameen cumar iyo xamza waxay yiraahdeen socodsiya ka muslimiin ahaan aan muujino aan dhaxmarna gaalada anagoo laba safa marka laba saf ayagu ay dhaxmareen maka iyo kacbada oo la arkay inay soo islaameen aad baa umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan qadka telefoonka aan sii qaadano halo halo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum salaam waa idin salaamay xaayow iyo sheekha cabdiraxmaan xafidullah su-aashayda waxa weeye sheekh cabdiraxmaan waxaynu tirsannaa hijriga inaynu ku jirro 1434 maanta muxaram marka maadaama nabiga calayhi salaatu wasalaam uu hijrooday isagoo 13 sano nebi ahaa aan ognahayna inuu madiino 10 sano dambe joogay hijriga aynu tirsanno 13 hore maka bacdi hijrigii uu hijroodo madiine u hijrooday baynu tirsannaa mise way ku jirtaa intaynu tirsanno 13 sano hore oo maka joogay aad baa umahadsan tahay jazaaka allah khayr waa mahadsan tahay horta waa 1334 1400 334 waay baaraka allah fiik
kuma jirta 13 sano maka joogay kalendarka islaamiga ah waqtigii Umar la bilaabay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kalendarka hadda wuxuu maraa 1434 marka waxa laga soo bilaabaa markuu nabiga haajiray oo Madiina u haajiray sanadkaas koow laga leeyahay 13 ka horeeyay maka joog kuma xisaabsana Umar ayaana sababtay ku bilaabatay iska lahaa nimankii gobolada madaxda ka ahaa ayaa waxay ku yiraahdeen amiir al-mu'miniin warqadaha noo imaanaya aad noo soo dirayso ma kala naqaantii horeysay iyo tii dambeysay marka haddii aad noo taariikhayn lahayd low arrakhta lana waxay asaasa fiicnaan leedahay marka saxaabadu isugu yeeray Umar ibn Khattab oo la tashaday hijrada xageen ka bilowna waqtiga dhalashada nabiga ka bilowna waqtiga dhimashadii nabiga ka bilowna waqtiga hijradiisa ka bilowna marka saxaabadii iyo Umar waxay isku raaceen in laga bilaabo hijrada nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ah 13 sano maka joogay kuma xisaabsana markii uu u haajiray waxa la sanad uula min al-hijra waa markii uu tagay Madiina ka markaas koow looga bilaabaya 13 nabinimada maka joogay kuma jirto marka hadii laga bilaabayo waqtigii nabiga laga dhigay 13 sano ayaa lagu sii daraya marka insha Allah ta'ala waa sida oo billahi tawfiiq aad baa ma santa sheekh hello السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سلامة السلام شيخ عبد الرحمن iyo Sakariya شيخ عبد الرحمن ilaaha ku xafido waxaan ku rajeynayaa saad leaderka fiican u ahayd inaad insha Allah aad si ahaato sanadka dambana aad dad u hogaamiso insha Allah qofkii rabo hadda kadib inuu leader samaystana Sheikh Abdi Raxmaan ha raaco dadka taasan kula talin lahaa insha Allah waxaan rabinaa oo su'aalo sheekha Sayfullah maxamsu ahaa mase Khalid bin Walid ahaa Sayfullah saxaabiga la dhihi jiray ma Khalid bin Walid ahaa mase Hamsu ahaa labadaas xooga raba inuu ii kala sheego barakallahu fiik jazakallahu khair ilaahay ku barakeeyo waxa loo jeedaa xajkan ma sanadkan isla xajinay wada ilaahay barakeeyo subhanahu wa ta'ala intina la xajisayna wa salaama ya Allah barakeeyo ilaahina noo ka xajka inaan tagno sanadaha soo socdo insha Allah ta'ala Sayfullah wa Khalid ibn Walid Hamza waxa la yiraahdaa sayyid shuhada waxa ay dagaal ku shahiiday shuhadada ninkii Asadullah wa Asadu Rasuulin waa la yiraahdaa waa libaahi ilaahay laakiin Sayfullah wa Khalid ibn Walid nabiga wuxuu ku yiri Khalid wa sayfun sallahu Allahu ala al-mushrikiin wa sayf ilaahay uu ku siibay gaalada dushooda wabillahi qadka telefoonka ayaan qaadanaynaa hello السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سكرية وأنا بسلام يا عديق إيو شيخ عبد الرحمن با. أيه. وحان شبائنا شيخ عبد الرحمن ويديو سؤال كصابسا هجردي النبي وكهجرودي عليه الصلاة والسلام مكة. وهجرودي مدينة. دولك أدحيا ودول آدو فربضان. waa dhul hadeer oo jidad loo sameeyay oo communication loo sameeyay oo laami loo sameeyay oo wax walba la sameeyay distaniskiisu oo aad iyo aad u adag yahay marka Makka ka tagto ee Madiina ku socoto xilligaas oo la ceyrsanayay alayhi salaatu wasalaam nabi Maxamed oo aan isgaarsiin jirin oo gaadi jirin oo wada fiican jirin oo biyo jirin imisay ku qaadatay ilaahay baa kullay u fududeeyay oo u saqiray labada magaalo inta u dhaxaysa intay ku qaadatay Umar iyo nabiga in ay ka tagitaankii Makka Madiina ku gaaraan wabillahi tawfiiq hadba ma sata bismillah alhamdulillah wa sallallahu alayhi wa sallam ajma'in runtii واساس وشاقي الأخ ودول آد قرفاف دول آد وكلول ودول مارتي أون لو قد منايو ودول صحراء رنتي وآد وقلفسن وحال هذا وحي سجرتا
waxay isu jirtaa 520 kilomitr يعني 520 kilomitr ay isu jirtaa baabuurta hadda basaska dadka xujayda يعني almost waxay socdaan 8 saacadood ay socdaan waqtiyaad takaasida ku yararka ahaa socdo بالضبط النبي انت ku qaadatay inta maalmood ku qaadatay ma xasuusta hadda run ahaantii laakiin waxay ku qaadatay maalmo badan ay ku qaadatay aad baa ma sadash insha Allah ta'ala hello السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا إسلامي شيخ عبد الرحمن إلهي كحفظه هذه حيون وسلامي شيخ واحد رجينا كويدي سيدابو هجرودي عمر قرمو هجرودي سيدابو هجرودي. أربعة ماسود. بسم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي كهر وسيه هجرودي عليه الصلاة والسلام. saxaabada markii loo fasaxay Umar saxaabadu way dhuuman jireen iyagoo guryahoodii maalkoodii ka tagaayo ay dhuuman jireen si dhuumashay ku bixi jireen Umar markuu haajirayay isagu ma dhuuman si cadaan u baxay wuxuu yiri ninka ay rabto ninka rabto hooyadii inay gablanto hay soo dabagal hay soo raaco ani waa haajiraya Madiina u socda diinteedana la haajiraya marka ninkii raba inay hooyadii gablanto ha isoo raadsada aniga iga daba yimaad waa dhaqaaqay oo iska baxay Umar de wuxuu ahaa nin aad u adag u ahaa geesina ah marka radiyallahu anhu saasuu si cad u haajiray wax daba kacayna ma jiraan oo Umar ka daba tagay isna waa baxay oo saasuu ku tagay marka Umar radiyallahu anhu advance monta Sheikh Abdul Rahman hello السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيو أديك يا شيخ عبد الرحمن بوائد السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وكاقعدنا ولا. waxaan rabay walaalow inaan sheekha aan ka codsado inuu qisadii kisir noogu sii wado oo doorkii maaragtay sidii masjidka ugu horeeyay islaamku ku aasaasmay iyo qisadii Abu Ayyub al-Ansari gurigiisa iyo hashi oo noo faahfaahiyo waxaa kale ka codsanayaa su'aasheeda labaad ay tahay hijrada iyo Salman al-Farisi saxaabiga ah Allah taraad noqday iyadana maaragtay connectionkii ka dhaxeeyay iyo sida Salman al-Farisi ku islaamay inuu noo sheego sheekho. Assalaamu alaykum. aad baa ma santa qisadaas waa qisada laakiin sheekh waxa ka codsan lahaa adoo soo koobay ha insha Allah bismillah khayr Allah ku siiyo jazakallahu khayr Allah ku barakeeyo hijrada waa duruus aad u fara badan runtii hadda waa soo gogoynay laakiin duruus aad u fara badan ku jirto nabi عليه الصلاه والسلام markuu Madiina soo aaday wala sugaayay dadkii reer Madiina maalin kasta banaanka istaagayeen geedaha timirta dusha laga fuulayay nabiga ilaahay baa soo socdo wala wada sugaayay nin walba inuu yimaado marka nabiga markuu tagay Madiina waxay ahayd Madiina maalinta ugu farxad badan oo Madiina taariikhdeeda soo marto ayay ahayd maalinta nabiga soo dhaweynay عليه الصلاه والسلام aad iyo aad u soo dhaweeyeen saxaabada walaal ma kala harin marka nabiga hashiisii uu saarnaa markaas uu socday markii hore wuxuu ku dagay maalintii jimcaha Quba ku dagay meesha masjidka hadda Quba la yiraahdo ku yaalo meeshaas uu jimcaha ku tukaday kadib hore uu sii socday masjidka Quba waa masjid nabiga uu yiri عليه الصلاه والسلام ninkii ku tukada laba ragcadood wuxuu la mid yahay isagoo umra gutay oo kale marka nabiga uu ka soo gudbay Madiina uu soo gudbay wuxuu yimid nabiga عليه الصلاه والسلام hashiis isagoo saaran ayuu yimid meesha hadda masjidka uu ka dhisan yahay marka meel ay fariisatay way ka istaagtay haddana meel kale fariisatay way ka istaagtay meel kale fariisatay way ka istaagtay meel kale afartii koono oo masjidka ayay ka istaagtay marka nabigu wuxuu yiri meeshaan masjidkayga ka dhiganaya halkan ka dhiganayo marka hashu waxay design gareynaysay masaajidka nabiga عليه الصلاه والسلام masaajidka nabiga dhulkan yaa iska loo yiri nabiga dhulkan marka waxa iska lahaa ilmo agooma ah iyagiyo marka nabiga عليه الصلاه والسلام ayuu ka gaday oo marka timira ku taalay timirtii laga jaray meesha marka masaajidka dhismihiisa laga bilaabay hashu way sii socotay nin walba wuxuu jeclaa hogaankeedu ku dhaganaa in ay gurigiisa tagto aad loo jeclaa nabiga عليه الصلاه والسلام marka النبي عليه الصلاه والسلام marka waxay iska dhaafo yiri nabiga faraha ka qaadacuha fa innaha maamura
وأمرنت فراح كقاضي مركز يوسعت أبو أيوب الأنصاري صحابي اللي يراهدو أي ردي سكودكتي مركز النبي وحوير نيكي مركز وحلبو ذي راركي يلبو ذي مركز سجوري سيقشتي مركز النبي وحوير ها هنا المنزل إن شاء الله تدكم مركز كلا جيتان وحوير المرء مع الرحل قفك ده راركي سميشو آدو لجرابوير مركز نيكا صحابي ومرتي النقضي والنصيب وياشي مركز عبد الرحمن قد هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله وايد السلام يا waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha kulli waa idaasin su'aalaha waxaan u maleynayaa tiradii nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo laga hadlay marka kulli inagu waxaynu soo xaajinay wadankan soo marka xidintu ka qabtaa hadeen wadankan nimi iyo waxaan kaloo rabay inaan su'aal kaloo ah aan hijrada ka baxsan oo ah haddaan ku tukado meel salaad farala ma wax diinta waafaqsan baa inaan sunnahana meel la xoogaa ka durugsan ku tukado mise waa wax aan ya iska caadi Soomaali isla iska samaysto salaam calaykum aad baa maasanta maxay su'aasha ugu codaan su'aasha daba mustiyahor labadaba su'aasha hore waxay tiri inkastoo aan barnaamijka aan la socon oo hadda aan gadaal ka soo gaaray laakiin waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo ah salaada faralka markaan tukanayo haddaan salaada faralka aan tukado sunnada ma meel kale inaan ku tukadaa mise in isla meesha inaan ku tukado bismillah sunnada inaan meel kale ku tukataa fiican sababtoo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka meesha uu ku tukado inay aakharo u markhaati kacayso marka aakharo uu tago dhulka uu ku tukado oo ku sujuudid oo ilaahay ugu caabudo subxaanahu watacaala markhaati uu ku noqona maalinta qiyaama marka inaad meel kale ku tukato waa iska sunna oo fiican tahay sababtaa waxaa kuu badana dhulkii markhaatiga kuu noqon lahaa marka saasaa fiican insha allahu tacala haddaa meeshaada ku tukato baas male laakiin dadka waxay meel kale ugu tukanaan si ay dhulka ugu markhaati furo dhul badan ay maalinta qiyaama uu shaahid ugu noqdo aad baa umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakr sadiiq barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hijradiisii iyo sidii uga hijrooday maka una tegay madiina marka sheekh cabdiraxmaan markii hasha ay fadhiisatay kadib maxaa dhacay saxaabada ridwanullahi calayhim dabcan waxaa la bilaabay markaas kadib markii nabiga calayhi salaatu wasalaam meesha yimid waxa ugu horreeya uu qabtay nabiga waxay ahayd inuu dhisay masaajidkiisa masjidka maanta taagan ee masjidka nabawiga ah ayaa la dhisay marka waana muhiim ummadda haddii ummad soo haajirtay oo kasoo horreysay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummadda muslimiinta waxa ugu horreeya oo la qabto ugu horreeya masaajid marka masaajidkiisuu dhisay nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka dhismihiisi waa isugu yimid dadku waa qaxootiyaa leeyahay saxaabada ridwanullahi calayhim oo waxay kusoo qaxeen madiina xoolama wataan wax la wata ma laha waxaa lasoo duldegay oo la kor saaran yahay mujtamacii ansaar ee madiina marka masaajidkuu dhisay nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkii markuu dhisay waxay ugu horreeya u qabtay ahayd waxaana ummadda ma jiri karta masaajid la-aan marka masaajidka nabawiga maanta aragteen ayuu dhisay nabiga calayhi salaam kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu walaalo ka dhigay muhaajiriin iyo ansaar ayuu laba walaalo isaga dhigay walaalo oo isdhexlaayo oo diinta isku dhexlaayo xataa saasoo nabiga uga dhigay walaalo marka mujtamacii muslimkana wuxuu ka dhigay walaalo ka dhigay ninba nin walaal uga dhigay nin muhaajir in ansaari nin muhaajir in ansaari markaas sheekh cabdiraxmaan waxaan rabaa halkaas ansaar markii joogeen madiina marka nabiga uu yimi calayhi salaatu wasalaam wax gaala ah marka madiina ma deganayn madiina waxaa deganaa yahuud ayaa deganayd nima la yidhaah bani nadiir iyo bani qurayda iyo bani qaynuqaac saddexda qolo waxay deganaa madiina gudaheeda waa yahuuday ahaayeen dadka reer labada qabiil oo madiina degan oo aws iyo khasraj la yidhaahdo labada qolo iyaga labadaas qolo iyagu muslimiinay lahaayeen gaalana waa ku jireen marka weli dadka ma wada islaamin oo dadkii muslimiinta ahaayoo soo dacwada ka waday madiina dad badanaa islaamka soo galay laakiin weli kulligood ma wada islaamin dadkii gaalana waa ku jireen marka nabiga wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam heshiisuu la dhigtay yahuudda heshiisuu la qortay qoraal ah ummaddii muslimiinta oo cusbeyd oo meesha degtayna wuxuu u sameeyey heshiis miithaaq loo bixiyo qodobo ah lagu heshiiyey
oo dadka u dejiyay ayuu qoray nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiiskaas yuhuudi degan la galay dadkii muslimiinta meesha joogay mujtamacii dee nabiga madax u noqday dowladda islaamka meesha ka aasaasantay mujtamacii muslimka oo madax bannaan oo meel dhul u madax bannaan yahay degan ayaa ka soo baxay meesha aad baa mahadsantahay qadka telefoonka halo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورا الوالد السلام عليكم شيخ عبد الرحمن إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل دنيا وسأش أودي ولا شيء يقول رسوها هي يعني ودن كان أنا أسهاجرنا مهاجر ونغير مش أوكي هذا بقى ما سنتا. بارك سؤال في عوام سؤال شاس waddankan u soo haajirtay wuxuu noqonaa hijru noqonayaa haajirid aad ka soo tagtay dhulkii muslimiinta oo dhulkii gaalada aad u soo haajirtay uu noqonayaa dabcan waa hijra naftiisa waa immigration waxaa la yidhahda immigrationka waa hijra marka haddaad ka tagto dee dhulkii gaalada dhulkii muslimiinta u haajirtana waa hijra marka meeshaad ka tagto oo meel kale aad aado waad u haajirtay xaggeedii aad u haajirtay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu caleyh فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله قفك إلهي إدرت أهاجر رسول كيسا إلهي رسول كيسا أي أهاجر ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه قفك أهاجر إنه ناقص وقرسدا إيو إنه الدنيا صاهلة إيو ganacsiga waa hijra marka meel aad adduun raadinaysa marka shaqo doonato iska hijra marka de wuxuu u haajiray uu leeyahay qofka saxaabadu ridwanullahi calayhim هاجرد إلى هجرتي وهاجرين مدينة أنت بدن واحد جعلين مدينة إنه يكون دنتان نلي سعد بن أبو وقاص أيه كوحن وصدي مكة مركا واحد وصدي وسقات المشي كل مناي نبي جا مركو حكيري حوله جسيا لا مدر دارما وحرب هالجبران كتجا حوله نص ما كدر دارما وحير ما ينص كدر دارما مركا وحير ثلثان ما كدر دارما ما ينص ما كدر دارما ما وحير الثلث كدر دارن صدق قيد مركا الواقع قيب ثلث كان وابدين مركا النبي هذا لو يدعو يري إله اللهم أمضي صحابتي هجرتهم إله صحابتي إذا وأقبل هجرته دي هجرتي هاجرين ويهاجرين مارتي مدينة إله وأقبل صحابته حج على المدينة كل إنتان نبي مدينة كل إنتي سوق مهاجر ومارتي هل كان سكوت دوغية صحابته حكا سكوت إنتان مركا waxay jeclaayeen inay hijradooda ilaahay meesha ay ku dhintaan meesha ay u haajireen oo ilaahay dartii ugu haajireen aad baa ma santa Sheekh Cabdiraxmaan qadka telefoonka hallo السلام عليكم عليكم السلام والسلام عليكم شيخ خوالد سلامي ka qaadno su'aasha rabo sheekha waxa weeye waa ma hubo inay wax laga yaabo in mawduuca ka tahay banaanka laakiin waa su'aal aniga muhiim ah su-aasheedu waxay ku saabsan tahay sheekh magacyadan aynu wadaynu soomaalida nahay u badannahay cabdiga iyo magacii sida cabdiraxmaan cabdiqani magacyada noocaasa ma sidii qur-aankii oo kale ayay ixtiraamka sidii kitaabka oo kale in loo ixtiraamo oo inta waraaqaa la isu soo diraya waraaqii waxaa ku qoran magacii ilaahay baa ku qoran walaba dee ugaadanacu garanaysaa ma waxaa meel xafidan loo dhigayaa sidii kitaabkii oo kale aad baa umahadsantahay bismillah magacyada waa qofka magaciisii iyo magacii ilaahay oo isla socdo cabduraxmaan yani addoonkii allaha raxmaanka ah marka arraxmaan waa magac ilaahay cabdullaahi allah waa magac ilaahay cabdulghafaar alghafaar waa magac ilaahay marka magacyadii xurmadii way leeyihiin magaca ilaahay xurmadii waa leeyahay inaan meel xul la dhigin inaan meel lagu tuurin sida qur-aanka oo kale maaha dabcan ma noqonayo qur-aanka oo kale oo hadda cabdiraxmaan tiraa sida qur-aanka markaad akhriso aad ajar lagu qorayo kale xaraf kasta ma aha waa magac laakiin magacii xurmadii waa leeyahay magaca arraxmaan arraxiim cabdiraxiim cabdulghafaar cabdulilaah yani cabdulqaadir yani magacii ilaahay waa in laga ilaaliyaa wasakda ama meel xun in lagu tuuro ama lagu istaago in laga ilaaliyo waa xurm uu leeyahay magaca ilaahay subxaana watacaala aad baa umahadsantahay sheekh cabdiraxmaan
قد تلفون كان قاطع. هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى السلام أيوه الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن هذا سؤالنا ويجي. أيه. تفضل إن شاء الله. waxaan qof xaamile ah marmar waxaa ku tukadaa fadhiga qof curiyaan lama iyo istaagiga isaga shaqaystaa marka dhib waxa ay dhibo salaada istaaga aad baad marka sheekha rabay ina salaad silayga aqbal kara in kala weydiiyo sax tahay aad baa u mahadsantahay laakiin sheekh markii shaqaysanayso waxay waa istaagina markay tukanayso baa dhibaato jirtaa بسم الله horta istaaga salaada la istaago waa rukni arkaanta kamid salaada oo hadii adoo kari kar inay istaagto hadaad fadhi ku tukato salaadaadi ma asaxayso waa inaad istaagto hadaadan kari karin inaad istaagto oo tabar darro ku hayso ama xaamilo aad tahay oo aadan istaagi karaynin insha Allah taala fadhiga ku tuko waa inaad kari karin inaad istaagto وأنا ذكري كي أنا استاجته لكن هذا استاجي كرت أم حوجا دالكو هاي أم حوجا ولا سكويركو يراهيو لما ربنا فدي كتوكتو ربنا استاج كتوكت هذا كري كرتو مثلا قبل أي ويدي وأن وتجي لكسنتون مقالي راد حيرادين وشقيناه 8 hours أنك شقينا ورشدة مركا نقولي تجنا نو دالنا نتجينا صلاة فدي مكتوكن كرنا 8 ساعات بتاجنيد إلى يكون جنيه 5 دقائق إن تاجنات محدبه هو كجرو مركا تام أصحيسو وإن هذا كرين إن هذا استاجته أما حامل النقو أما حنون هاكو هيو أما مارتي واحد كسب هالنقطة إن هذا استاج كرين مركا وحير النبي صلى قائما تك هذا تاجن فإن لم تستطع هذا كرين إن هذا استاجته فقاعدا هذا فديتكو تاسو النبي عليه الصلاة والسلام waxa kuna xusuusinaya sunnaha ay asaga fadhi waa lagu tukan karaa adoo kari kara xataa inay istaagto bas waxa fadli badan inay istaagto markaad kari karto ayaa ajar badan laakiin hadaa fadhi ku tukato sunnaha waa ku asaxaysa aad baan ismaanta shaabtama waqtiga aad noogu yar qadka telefoonka qaadanayna halo assalaamu calaykum calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh عبد الرحمن وإذن سلامي مركو هرسو إلهي خير قصي الشيخ وحاربي وحيالا بدن إنو كويدي لكن وقت قوة ويرياي الشيخ وحاربي إنو كويدي أو مدازد بدن أويجي دهبك إنكسو موضوع أوسن كمد أهين دهبك ما وحا لك الشنايا سيديتي نشان وحي كبدن ما سيديتي نشان وحي كسو دلاوض إلا إي سيديتي نشان لعل هذا بقول جرام هدي أن ليها وقلي محان كبشين كرازيكو aad baa umahadsanta waxaan ka codsan lahaa sheekh cabdiraxmaan qadka telefoonka inkastoo telefoonno badan jiraan haddana waqtigan aad noogu yeeryahay su-aashaasna kasii jawaabtid su-aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay dadka soomaaliyeed imika daawanayana maxaad kula talin lahayd بسم الله gabadha horta khayr Allah siiyo zakada waa nisaabka 85 gram hadduu dahabkaada gaarsiisan yahay markaasaa zaka lagu leeyahay 85 gram hadduu gaaro hadduu 84 gram iyo waxba laga marrabo ama 82 ama 83 laakiin 85 markuu ku istaago waxa laga rabaa zaka inaad ka bixiso oo sanad uu ka soo wareego waxaad bixinaysaa rubcul ushur inta gram waad haysato waxaad u qiiminaysaa 40 mesela 200 gram hadaa haysato 40 u qaybi maxaa ku soo aadaya 5 gram 85 tadaafar u qaybiso almost 2 gram iyo xoogaa ka soo baxay marka ama dahab aad u bixin kartaa oo zaka ahaan ama lacag aad u bixin kartaa laakiin 85 ka bilaabanaya barakallahu fiik sheekh cabdiraxmaan waxaan soo gaarnay xilligii ugu dambeyntii noona duceey noona soo qatim bismillah waxa dadka u dardaarmi lahaa ugu horeysa diinta in la xafdisto ayuha al-ikhwa wal akhawat dadka guryaha joogo dadka maartay dhageysanayo dadka meel kasta caalamka joogo waxaan leeyahay diinta hal xifd diinta waa raasamaalkaadii الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران دين تو رأس المال هذا ويس دين تادي وحبكو مهرين وحكو بدبادي مجرى مركا دين تادي بدبادسو وحكو بدبادسو دك علماء دينا كاغ دوداي مسايد كينا تكو حرناتو
haddii aad ku xirnaan jirto casharada wax ka qaadan jirtay masaajidka casharadii tag duruustii waa socotaa casharadii waa socotaa jimcihii jamaacadii waa socdaa masaajidka ha ka go'in guriga haddaad ku go'doonto tv keliya fiirsanaysid movie to movie ama television fiirsanaysid iimaankaada waa dhimanaya diintaadi waad waynaysaa salaadaa ka caajisaysaa marka daba ma tukan kartid laakiin dadka muslimiinta imaaw masaajida imaaw qur-aanka ku akhriso casharada dhagayso dadka soo xaadir casharada iyo duruusaha yani khayrka kasoo qayb gal dadkii waad is abiirgaroobeen meelay ka baxeen lama yaqaan marka waxaan idinkula dardaarma diinta in la xifdisto waxa kaloo dhanna waa idin xifdismayaan waxa kaloo dhan waa idin badbaadayaan haddii diinta idin badbaado marka insha allah intaasaan idin leeyahay hal isjeclaado walaalaha hala noqdo إن شاء الله إلهي وحن ويدسنا إنه دم بدافع أنت جرا إلهي وعافية سبحانه وتعالى إلهي وحن ويدسنا بفضله ومنه أنت دبك هاي دبك الله كقاده ضلك نبض الله نوقديه تدور على جعل الله نقديه أنت جرا أستاذ كجرت الله عافيه أنت مارتي دون سر الله سبحانه أنت مارتي قيسك خلافك كجرا خلافك الله كساره أنت مارتي علادك ده علاد الله كساره وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين جزاك الله خير حيو الله أكبر.